xuseen cabdi wuxuuna weydiinayaa sidee goojada isha loogu dhibciyaa muuqaal ka horeeyaa jirto ah sidee goojada loo furaa dadka aad bay u xiisinayaan maba islahaynba saasoo dhana goojada sidee loogu furaa dadka ay ugu dhiban yihiin marka goojada aad furtay kadib isha sida loogu dhibciyo waxay tahay markuu haddii oo furkoo kale badanaa isku day inaad tiishoo kale meel nadiif ah saa u dhigtid ookiyaal hadaawa dabcan ookiyaalkaaga iska bixinaa ookiyaalkaaga iska bixine dad badanoo waxaa jira aad ugu dhiban oo xitaa dadka qaar dhibaya dhaa kaali ugu dhibciyo looma baahno goojo markaad soo qabsatid marka hore waxaa waata saa adoo imku dhibci karto waa inaad madaxa saa u jeecisaa saa aad dhaha dadka qaar waxaa jira oo la gagafahay si aad u gafin waxaa loo dhaweeyaa godka marka isha adoo saar ah hal dhibic siinee hadda ku dhibciye markaa ku dhibcisid halkaan maaragta weliba hadduu tiish ay kuu dhowdaa tiisha soo qabsa ishada isku haayo isla markiiba halkaanaa qabanaya hadda weli waa ka daahiye halkaanaa qabee sanka isha meel iska galaan dadka qaar waxaa jiro oo isha haddii ay ku dhibciyaan dhanaankeeda mise qaraarkeeda halkaan ka dareemaya marka dadkaas waxaa lagu talinaya inay halkaas ilaa 10 ay tirsadaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kadib haddii ay haystaan oo kale iska tiraan sidaas waa sida goojada isha loogu dhibciyo waa idin baryaa see loo xiraa muuqaalka soo sameeyahay dhihin aniga musalsal ha iga sameynina saan loo xiray wax adag ma ahan haddii caawinaad dheeraada kale u baahan tahay xarun daryeelka indhaha magaalada muqdisho ku tahay aad nagu soo booqan kartaa markaas wax walbo daryeelka indhaha ku saabsan waa laga haqabtiri doonaa soo dhawaada